guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibadiisaba waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mudane madaxweyne mahad oo dhan waxay u sugnaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dalkeenna ka soo doojiyey marxalad adag oo qaadatay in ka badan 1 sano oo hubanti la'aan siyaasadeed iyo mid amni ah. maanta waxaan runtii cagta saarnay isla markaana aan kaabiga u taagannahay inaan dhammaystirno hay-adaheennii aas-aaska ama lafdhabarta u ahaa qarankeenna. mudane madaxweyne sida aan ognahay shacabka Soomaaliyeed waxay soo doorteen wakiiladaasi waxay ka soo xusheen muwaadiniin Soomaaliyeed oo tiradoodu gaarayso 39 muwaadin isla markaana dhammaantood application ama codsi usoo gudbistay inay noqdaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. waxaa farxadii runtii adiga oo sidaas ku soo baxay oo lagu soo xushay tirada intaa la eg ee muwaadiniin Soomaaliyeed laga soo xushay inaad iga soo xulato 100 Soomaaliyeed oo aan helo kalsoonidaada taas oo ku qotanta inaad rumaysan tahay ama ay kula muuqato markaad qiimaysay in aan ka soo bixi karo shaqada adag ee ina hortaal. maanta mudane madaxweyne waxaan ognahay ka sokow mashruucaaga damuuxa ah ee aadka u ballaaran ee kalsoonida shacabka Soomaaliyeed aad ku heshay oo aas-aaskiisu yahay dabcan faylasha waaweyn ama issueska waaweyn ee dadkan iyo dalkan hor yaalla oo ay kow ka tahay xasilooni siyaasadeed si loo abuuri lahaa amniga si loo sugi lahaa abaaraha dabada dheeraaday runtii sidii xal waara looga gaari lahaa sidii dastuurka u dhiisu daba dheeraaday ee muddada dheer jiitamayay